dhaawacyo laga keenay laascaanood oo magaalada muqdisho diyaarad sida soo gaartay warbixin la xiriirto waa idiin soo gudbin doonaa sidoo kalena waxaa qayb ka noqon doona hay-adda maareynta musiibooyinka oo gargaar daawo u dirtay dhanka iyo laascaanood warbixintaasoo dhammaystiran u diyaar garooba waxaanuna ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaagno xalay ilaa hadda xoolahana meesha lagu hayaa inay soo doontaan dadka milkiilayaasha duqa muqdisho wuxuu ku diray muddadii 48 saac oo ka dhigay duqa magaalada amarkiisana waay 48 saac kadib qofkii aanan soo doonan xoolihiisa oo ganaaxan oo magaalada ka xareysan ama ka bixin na waxaa la waafajin doonaa procedure-ka saxda la marsiin doonaa sidii maalin hore talaado loo marsiiyay waa la gowrici doonaa maamulka gobolka Banaadir oo mar kale ku celiyay in ay gowracayaan xoolo loo ay ka soo qabtay magaalada Muqdisho dadkii la haday iimaanin Aalamada gudoomiyaha baarlamaanka ku samaha madaxweynaha ayaa buuga tacsida dadka reer Turkiga dhulgariirkii ku dhacay ka qayb galay safaarada Turkiga Muqdisho iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha oo asna halkaasi gaaray saxiixana buuga tacsida una duceeyay dadkii ku waxyeeloobay warbixin aan ka diyaarinay dhanka kalena kulankii ra'iisul wasaaraha oo maanta la yeeshay golihiisa wasiirada isla markaasina waxyaabaha looga hadlay warbixin la xiriirto ayaa idiin soo gudbin doona iyo kulamo kale oo ra'iisul wasaaraha yeeshay u diyaar garooba waxaana ka daawan doontaan Dobiyo Media iyo barta kale ee M Dobiyo anigoo Mustafa Maxamed ayaa ku soo jeedinayo ilaa 200 neef oo wadooyinka magaalada Muqdisho degmooyin kamid ah ee ka soo aruuriyeen maamulka gobolka Banaadir ayay isku keeneen maanta meel waxaana halkaasi fariin degniin ah ka diray agaasimaha waaxda nadaafadda iyo bidix soo celinta Maxamed Suudi Maxamuud oo sheegay in howlgalkani laga sameeyay degmooyin kamid ah gobolka Banaadir sida Dharkeynle, Howlwadaag iyo sidoo kale Hoodan, Shibis iyo Waaberi isla markaasina wadooyinka magaalada Muqdisho habeenkii xalay ahaa ilaa iyo maanta oo ah gabalac howlgal laga sameeyay lagu soo qabtay 200 oo neef oo loo ah wadooyinka daadsan waxaana intaasi sii raaciyay in ilaa iyo iminka aysan jirin cid soo gabagashay xoolahani oo la garanayn cid iskale balse lagu soo deeyay wadooyinka Muqdisho ee ku dheelayaan nadaafadda iyo sidoo kale dhibaato ku hayaan bulshada wuxuuna intaasi ku daray in hal marka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho madaala la raacayo muddo ku kordhiyay 24 saac haday dhamaato loodani la marsiin doono habraacyadii kuwii ka horeeyay maalintii talaadada ahaa oo sheegay oo la gowraci doono Soomaaliyeed inaan la wadaagno xalay ilaa hadda xoolahana meesha lagu hayaa inay soo doontaan dadka milkiilayaasha duqa Muqdisho wuxuu ku diray muddadii 48 saac oo ka dhigay duqa magaalada amarkiisana waay 48 saac kadib qofkii aanan soo doonan xoolihiisa oo ganaaxan oo magaalada ka xareysan ama ka bixin na waxaa la waafajin doonaa procedure-ka saxda la marsiin doonaa sidii maalin hore talaado loo marsiiyay waa la gowrici doonaa Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahna ku samaha madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa gaaray safaarada dalka walaalaha aan Turkiga magaalada Muqdisho si uu qayb galo tacsida buuga ee halkaasi taalo dadkii ku geeriyooday dhulgariirkii ka dhacay Isniintii aan soo dhaafnay dalkaasi Turkiga dad badan ay ku dhinteen gudoomiyaha aqalka hoose baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku samaha madaxweynaha Sheekh Aadan Madoobe ayaa halkaasi ku saxiixay buuga laga furay tacsida dalka aan walaalahan ee Turkiga dadkii ugu geeriyooday dhulgariirkaasi asigoona lagu bariyay jannadii firdawso dhanka kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa gaaray safaarada Turkiga si uu uga qayb galo tacsiyeynta dalka walaalaha ee Turkiga dhulgariirkii ka dhacay Isniintii la soo dhaafay magaaladaasi ka tirsan ee wadankaasi Turkiga asigoona ay weheliyaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada safiirka ayuu la kulmay waxaana halkaasi oo dabadeedna uu gaaray buuga tacsida ee laga furay dadka ku geeriyooday dalkaasi Turkiga dhulgariirkii ku dhuftay ra'iisul wasaaraha ayaana buugaasi saxiixay intaasi kadibna wuxuu alla uga baryay dadka aan walaalaha nahne ee Turkiga dadkii ugu geeriyooday dhulgariirkii ka dhacay inuu jannadii firdawso ka waraabiyo dhanka kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya kulankaasi oo golaha wasiirada oo shir gudoomiyaha ra'iisul wasaare Xamza ayaa xubnaha maanta golaha wasiirada waxa ay cod aqlabiyad ah ku meel mariyeen magacaabista gudoon ama xeeraryaha guud ee hantidhowrka guud ee qaranka Soomaaliyeed
waxaana cod aqlabiyad ah ay ku ansixiyeen magacaabistaasi la magacaabay hantidhowrka guud ee qaranka Soomaaliyeed Abukato Axmed Ciise Guutaale, waxaana oo horey u ahaa isla markaasina usoo qabtay xilal kala duwan oo ka mid ah in uu xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya horey ugu soo kala noqday la taliye dhanka sharciga maadaama oo ka takhasusay dhanka sharciga. waxaana sidoo kale shirkadaha caalamiga iyo kuwo kale ee ganacsiga gudaha dalka laga leeyahay ayuu maamulay, isagoona sidoo kale madax ka soo noqday oo maamulo warbaahinno heer caalami ah kuwa dalka ah. Guutaale ayaa dhanka sharciyada takhasus ka qaatay shahaado jaamacadeed isla markaasina dalka in muddo ku sugan. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan la qaatay wasiirka wasaaradda waxbarashada, hidaha sare iyo tacliinta iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa ee weheliyaan xubnaha wasaaradaha ee dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale guddoonka gobolka Banaadir dhankiisa waxbarashada. waxaana ujeedku uu ahaa in warbixin laga siiyo kulamo 7 maalmood ka socda Muqdisho. wasaaradda waxbarashada, hidaha sare iyo tacliinta ee soo qabanqaabisay isla markaasina la rabay sidii loo qaybin lahaa dhowaan barnaamijka ay ku dhawaaqday macalin qaadashada ee 3,000 ee macalin la rabo dalka in la geeyo isla markaasina la mideeyo. Ra'iisul wasaaraha ayaana ku bogaadiyey wasaaradda waxbarashada iyo wasiirkooda dhammaan xubnihii soo qabanqaabiyey, waxaana arrintaani imaaneysaa xilli dhowaan wasiirka wasaaradda waxbarashada, hidaha sare iyo tacliinta uu sameeyey arrimo fara badan oo ku aadan dhanka horumarka waxbarashada Soomaaliya. ugu dambeyntiina maanta waa berigii hore ayaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho lasoo gaarsiiyey 30 dhaawac ah dadkii ku dhaawacmay 4 maalmood ee shaqaaqada ilaascanood ee ka taagneed si halkaani loogu dabiibo. Gaadiidka gurmadka degdega oo lagu sii diyaariyey garoonka isla markaasina soo dhaweynta dadkaasi diyaarinta howshaani ee ka qayb qaateen xubno labada gole ee federaalka Soomaaliya baarlamaankiisa ku matalo deegaanadaasi. waxaana halkaasi kadib markii diyaaradda ay keentay dhaawacyadii la geeyey isbitaalada magaalada Muqdisho si ay u helaan baxnaano. waxayna arrintan imaaneysaa xilli madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay dalka waxyaabaha ka dhacay dhibaatada dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee mas'uul ay ka yihiin dowladda Soomaaliya. ayadoona dowladda Soomaaliya dhanka kalena ay tilaabo ee qaaday maalintii shalay ahayd isla markaasina ay ku dhawaaqday arrinta ku aadan in gurmad loo sameynayo dadka ku waxyeeloobay dagaalada isla markaasina diyaarad gargaarka dhanka daawooyinka sida Muqdisho ka ambabaxday isla markaasina hay'adda maareynta musiibooyinka daawo iyo dhaqaatiir 6 gaaraysa ay saartay u dirtay magaalada Garowe si ay halkaasi ugu sii gudbaan laascanoodna maanta ay gaareen. tilaabadaanina ayaa waxay ka dhigan tahay in gurmad loo fidinayo. guud ahaana intaasi ayaan kusoo gabagabeynayna tan iyo mar kale intaan kulmi doono sidaas iyo nabadiina iyo kulan kale oo xiiso leh.